Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta si weyn waxa loogu soo dhaweeyay xarunta gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne. Saada Said Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Beledweyne halkaas oo uu ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, mas'uuliyiin iyo dadweyne aad u fara badan. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ujeedada socdaalkiisa tahay xojinta iyo sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaa magaalada Beledweyne horey ugu sii sugnaa wasiirada arrimaha gudaha, gaashaandhigga, haweenka, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. Waa socdaalkii labaad ee Ra'iisul Wasaare Xamse uu ku tago magaalada Beledweyne tani markii xilka uu qabtay, taasi oo muujinaysa ahmiyadda iyo mudnaanta Ra'iisul Wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay siinayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.